waxa looga jeedayna wadahadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midho laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Soomaliland iyo Soomaaliya kolka waxa noo qorshaysanaa shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu yiraahdo code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabayd confidence building gibe qodobka saddexaad dhowr arrimood oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan gudiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda gudi baan u saarnay gudigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib jabuuti uu ku shiri doonaa gudi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu jabuuti ku shiri doonaa gudi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexdaa gudi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan jabuuti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees gudigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay gudiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho wali joogaan madaxweyne Muuse Biixi intuu jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxaan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wafdigiisa ku dhiiri gelinaya ina hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaaya leh oo damidha leh sidaasoo kale prime minister xasan cali khayre madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hotelkan buu ku jira isaguna tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ee qabsoomatay sidii runta shirkan jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anaku Soomaali nahay shisheeyuhu meesha boogtu ku taallo bilow wuu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malayno uu garan waaye jabuuti waxay la tahay annakoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay jabuuti oo walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kolkuu ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood u noqdo oo hoggaam u noqdo shucuurka buu qabay dareenka buu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Somaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan